حساكو أي بيشي تايليحي طبانكي بيشي كواد لبدا كوني الليحي طبانكا كفرمي هولك دولada hoose degmada garada kalfadhigi 12 ee yeeshaan xildhibaanada golaha deegaanka degmada garada kalfadhigan oo ay ka soo xaadireen badi xildhibaanada golaha deegaanka isla markaana uu shir gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada garada kalfadhigan oo ku bilaabay jawi degan ayaa markii uu furmay waxa warbaahinta warbixin ka siiyay jadaha lagaga doodi doono kalfadhigan duqa degmada garada mudane Faarax Aadan Ciise iyo xogayaha fulinta dowladda hoose Ibrahim Ismaaciil Ogle ugu horeeyna waxa halka ka hadlay duqa degmada garada hadaladiisa waxaa ka mid ah sida tan maanta waxaan inoo furmay insha Allah taala kalfadhigeeni 12aad ee golaha deegaanka ee degmada garada insha Allah markuu kalfadhigeenu inoo bilaabmo sida ajandaha ku qoran qodobo badan oo muhiim ah oo horumarka deegaanka iyo xallidaha mashaakilka iyo waxyaalo badan baa laga doodi doonaa marka insha Allah taala dhammaanba xubnaha golaha deegaanka waxaan ka codsanaynaa in wixii ma garanaysaa kalfadhigaas ma garanaysaa qodni waliba wixii aad iyo aad muhiimada mowduuc bidayo lagu soo dari karo in la keeno si wanaagsan haddii alla yiri shirku nagu socdo oo ma garanaysaa si maadaama hawlo badan inoo yaaliin deegaankeena ay ma garanaysaa waqtiga aan dawrno ay muhiimada siino isla markaana aynu ixtiraamno arahaha ma garanaysaa xildhibaanada marka waxyaalaha isla qaadano insha Allah taala aynu ajanda buuxa aynu ka dhigno si ugu suurta gashana aynu u suura gelino inay dhamaadaan insha Allah taala sida ugu suurta inoo furmay kalfadhigii 12aad ee golaha deegaanka ee degmada garada kalfadhigaas oo ajandihiisu uu dhowr qodob yahay qodobka koowaad aqaan idin akhriyo waxa weeye samaynta gudiyada caafimaadka iyo waxbarashada qodobka labaad astaynta meel hawaan gowraca xoolaha laga dhigi karo Muhammad Arseere muqbaaya qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland garada